عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عبد الله أريزونا وحنا halkaan maanta nagu soo gudbin doonaa taariikhda dalka Ruushka. dalka Ruushka oo loo yaqaan Jamhuuriyadda Ruushka waa dalka dunida ugu weyn waxaana uu xuduud la leeyahay wadamo ku yaala qaaradaha Aasiya iyo Yurub. Wadamada Yurub ee Ruushka xuduud la leh waxaa kamid ah Norway, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Ukraine iyo Georgia. dhinaca qaaradda Aasiya wuxuu xuduud kala leeyahay wadamo ay kamid yihiin Azerbaijan, Kazakhstan, Shiinaha, Mongolia, Kuuriyada Waqooyi iyo wadamo kale waana taas keentay in loo aqoonsado dalka dunida ugu weyn. sidoo kale Ruushka waa dalka sagaalaad ee dunida ugu dadka badan waxaana tirada dadka Ruushka u dhashay lagu qiyaasaa 144 milyan oo ruux sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka. Caasimadda wadanka waxaa la yiraahdaa Moscow waana magaalada wadanka ugu weyn. luqadda koowaad ee wadankan looga hadlana waa Ruush. hase ahaatee waxaa jira ilaa 27 luqadood oo kale oo dalkaasi looga hadlo. lacagta wadanka laga adeegsado Ruusian ruble ayaa la yiraahdaa gaadiidka dhanka midig ay isku dhaafaan waana dal cimilo ahaan inta badan qabow ah. dalkan oo ah dal taariikh u leh siyaasadaha iyo awoodaha ciidan ee dunida soo maray waxa uu kamid yahay wadamadii hormuudka u ahaa ururkii midowga Soviyetka ee ay ku madaysnaayeen ilaa 15 jamhuuriyadood inkastoo markii dambe ay burbureen. sanadkii 1957 Ruushka oo hormuud u ahaa wadamadii Soviyetka ayaa markii ugu horeysay hawada u diray dayax gacmeedkii ugu horeeyay kaasoo la yiraahdo Sputnik 1 waana dal hawada ku leh saldhig ay dayax gacmeedyadu ku dul degaan. bishii Abriil 12 sanadkii 1961 aqoonyahan u dhashay dalkan ka sheekana Ruushka ayaa sidoo kale noqday qofkii ugu horeeyay ee hawada u safra kuna dul dega meeraha orbitka la yiraahdo. Ruushka oo hadda dawladihii soo maray ahaayeen kuwa si weyn uga biyadiisan siyaasadaha reer galbeedka waxa uu dhanka kale soo galay dagaalo meelo kala duwan oo dunida ka dhacay sida duulaankii Soviyetka ku qaaday dalka Afghanistan sanadihii 80-aadkii. ciidamada Ruushka ee xil walba heeganka ku jira waxay ka badan yihiin 2 milyan oo ruux. dawladuna waxay sanad walba ciidamadeeda ku bixisaa lacag ka badan 69.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxaana hadda dalkan lagu eedeeyay inuu faragelin toos ah ku hayo wadamo ay kamid yihiin Ukraine iyo Syria. xagga diimaha haddii aan eegnana dalkan dadka ugu badan waa Masiixiyiin, Islaamkuna waa diinta labaad ee dadka ugu badan ay haystaan. dad badan oo Ruush ah ayaa Islaam ah waxaana tiradooda lagu qiyaasaa 9,400 oo qof. badankooda waa Sunniyiin inkastoo Shiicana ay ku jiraan. dhaqan ahaan dadka Ruushka way kala duwan yihiin qowmiyad walbana dhaqan u gooni ayay leedahay. hase ahaatee dumarku waxay xirtaan maryo waaweyn oo cadcad dhexdana tarash ku leh madaxana waxay saartaan maryo midabkoodu qalin yahay. ragguna surweelo iyo shaatiyo madmadow iyo maro qamiis u eg oo casaan ama gaduud ah. cunada ugu badan ee dalkan Ruushka laga cunana waxaa kamid ah maraq iyo muufo iyo kalluun aad u kulul, malabka iyo cunooyin kale. maraqa kulul oo aad looga cabo dalkaasna waxaa loo yaqaanaa shashi. ciyaaraha haddaan ognana xulka qaranka dalkaasi waxa uu kamid yahay wadamada magaca ku leh ciyaaraha kubadda cagta. intii uu dalkan watay magacii Soviyetka waxa uu noqday dalkii ugu horeeyay ee ku guuleystay koobka ciyaaraha qaramada Yurub sanadkii 1960. magaca Ruushkana waxay sanadkii 1988 ciyaaryahanada wadanka Ruushka tageen ciyaaraha kama dambaysta ee koobka qaramada qaaradda Yurub.